qof 8 star oo aan qaaradda Afrika joogin oo runtii ganacsigan ka soo bilaabay magaalada Muqdisho Soomaaliya laakiin maanta ku sugan qaaradda Yurub meesha Soomaalidu ay u tahriibaan oo u maleeyaan waxa waay hadday tagaan in nolol iyo shaqo taalo kambanigan ka shaqeeya darajada 8 star sidoo kalena runtii qof aan aniga iyo asaga si gaar ah iskugu dhownahay aaladan Zoom-ka ee aan soo bilaabay ku soo wada halganay noona aha waxa waay runtii leader of Somali digital team dad badan inay markay magacaas waxa waay aan sheegay title-kaas inay garteen oo ay sugayaan ayaa rajaynaya runtii qofkaasi markii ugu dambeysay waxaan ku ogaa qaaradda Yurub gaar ahaan wadanka Belgium-ka waa qof safar badan marba meel taga meeshuu jooga uu noo sheegi doonaa insha Allah waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo si uu noola wadaago bal Tianis ka hor wuxuu qaban jiray Tianis qaabka loogu soo casuumay muddada uu ka shaqeynay faa'iidada uu ka helay maanta asagoo Yurub jooga sababta u suurtagelisay inuu ka shaqeeyo xilligii uu Soomaaliya joogay hadda farqiga u dhaxeeya hogaamiye master engineer Abdallah bin Abdallah welcome ku leeyahay soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسروق على عبدي هذا كلام أدعي سود وأنت بقيمة عليه سيدو كلام وحن آد سلام يا دمان distributors كان كوتشرو مالك سات كوسونتين وهذا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت تكذب هدي عن سكين برا ذاتك عصب مجاعي واحد هذا عبد الله عبدي آدم أحكم قاعد راهي إنجيل عبد الله بن عبد الله وحن كوسوغنا هاي ذلك بلجيمكا waxaan ahay xubin kamida amba qof ka shaqeeya company-gan Tianis dabcan su'aashu weydii waxay ahayd Tianis ka hor maxaad qaban jirtay anu Tianis ka hor waxaan ahaa qof arday ah oo wax barta sidoo kale waxaan ahaa oo jaamacad dhigta sidoo kale waxaan ahaa qof macallin ah oo iskuulaadka wax ka dhiga sidoo kalena ganacsiga asiga u qaasana laha maalmaha kamida ayaa waxa ganacsigan igu soo casuumay wiil aan saaxiibo ahayn aan isku baranay goob waxbarasho la yiraahdo Masar Maxamed Maxamuud Cabdi Baraawe oo laba habeen ka hor galay darajada Silver Lion oo ku qaadan doona insha Allah lacag gaaraysa $20,000 ninkaas ayaan ganacsiga igu soo casuumay oo igu yirni waxaan ku hayaa fursad ganacsi ma doonaysaa inaad ka faa'iideysto runtii markaan ganacsiga imaaday oo xaruntii aan imaaday waxaan arkay ninkii aan garanayay oo de qof yaro iska ceel xaafid iska ah oo iska libis caadi iska wato dinol caadi ku jiro ayaa waxaan u maaday ninkii oo isbedel weyn ka muuqdo waxaan dhahay bal ganacsigan sharaxaad iga sii shirkadii ayuu wuxuu iga siiyay warbixin iyo macluumaad runtii waxyaalaha ugu muhiimsan aniga shakhsiyan xilligaas aad ii soo jiitay waxay ahayd xagga caafimaadka waayo waxaa jiray xilliga wadaad aniga abtigay ah hooyadii la dhashay oo xanuun burooyin qaba oo waliba jirkiisa dhan wada buro aha waxa iga sii darnaa waxa ahayd qofkaasi hadii jirkiisa meel kamida uu dhiig ka yimaado oo meel kale ay gaadho wax isku bedelaysay buro oo jirkiisa dhan bay burooyin ku faafayeen hadee naqata naaska bidixda oo kale waxa aga taali buro waaweyn gacmaha duunta soo jirkiisa dhan wuxuu ahaa wada buro aha wuu iska ilaalin jiray inuu isxoqo hadduu isxoqo meeshaas uu xoqay wax isku bedelaysay burooyin ka soo baxda wadanka gudihiisa waxa loo qaban waayay oo dhaqaatiir badan baa geynay waxay yiraahdeen waxa kama qaban kareyno waxa la doonayaa in dhiiggiisa la sifeeyo oo amba dhiigga laga miro dhiig cusub lagu shubo wax noocaasa waxa go'aansanay marka dhaqaatiirna lagu sheegay in India inaan u aadno asigoo marka qorsheysanayo sidoo India ku aadi lahaa xaaladiisa dhaqaale aad u hooseyso oo san awoodin inuu baxo oo waxa waay India tago isbitaal galo dhaqaalahaas oo dhan iska bixiyaan runtii aad ugu adkeed markuu ii sheekiyay oo warbixintii siiyay wuxuu yiri daawadani kiliisan bay sameeysaa dhiigga dhaqdaa waxaan bay qabataa bal waxaan yiraahday dhiigga dhaqdo qof noocaas ay joogo xaaladaas ku sugan wax ma ka qaban kareysaan ka bacdi wuxuu yiri ha meesha joogay oo marka asiga la shaqeynayo ii geeyay wuxuu yiraahday ayaa ku siinayaan warbixin amba xog dheer iyo xagga caafimaadka sharxaadiga siiyeen caafimaadkii daawooyinka shaqeeyaan waxaas kabacdi waxa go'aansaday inaan abtigay la wadaago abtigii baan u tagay waan u sheegay waxaan abti waxaan hayaa daawooyin noocaas oo waxa waay jeena laga keenay bal wuxuu yiri hadii dhiigayga dhaqayaan qiimaha doona ha joogaan waan doonayaa iigay runtii abti waan soo kaxiyay waan u geeyay markaan abtigii u geeyay daawooyin bay u soo qoreen alxamdulillah markuu daawooyinkii isticmaalay muddo bila
horta waxa ku dhacday aad baan aga naxnay waayo jirkiisii oo dhan baa isbedelay oo asaga dhan karar kale noqday oo jirkiisii uu gadutay waan naxnay cabsi baan soo gashay kabacdi oo kusoo noqonay waxa dhibkaana dhacaysay maxaa sameynaa kabacdi waxaan ugu taray inaan daawooyinkii sii wadno asigana marka wuxuu go'aansaday maadaama wadanka xoolo uu qaban karin xaaladdiisa marka hore halis ahayd waan isbcaala daawada go'aan baan u qaatay alxamdulillah hadda qofkaasi jirkiisii waa nadiif oo wax buro ah kuma yaalaan waan anigu waxa ganacsigan marka igu dhiirigeliyay oo runtii kalsooni badan ii siiyay ganacsigan aan ka sii shaqeeyo qaar badan oo familkayga iyo ehelkayga runtii maanta ay ka shaqeeyaan ganacsigani waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo runtii aniga si gooniya ii taabta xagga caafimaadka markaan hadda wadanka ka soo tegay aan Yurub imaadayna waxyaalaha runtii ugu horeeyay aan ganacsigan ka bilaabay maadaama waxyaalaha ugu horeeyay anigu dhiirigeliyay waa caafimaadka markaan halkaan imaadana waxaan bilaabay waalidiintayda oo runtii markaan halkaan waxa jooga hooyaday iyo aabahay waxaan imaaday aabbahay oo dhabarka xanuunaya oo dee aanan xataa rugman karaynin hooyo oo dhiigga jirkeeda aanan si fiican u shaqeyn la yidhaahday hawada intaa ku dhibayso alxamdulillah marka halkaan imaan ayagaan ka bilaabay in daawooyinkii haddana aan siiyo maadaama aan ogahay tayada ay leedahay daawooyinkaasi alxamdulillah ayagana maanta runtii aad u ammaanaan waana dad markasta isticmaala wax saarka shirkadda midda labaad oo muhiimka waxay tahay waa fursad ganacsi oo adduunka meel kastoo aad joogto aad aga shaqaysan karayso maanta adigoo Soomaaliya jooga adigoo America jooga adigoo meel walba adduunka aad joogto waa ganacsi aad ka qaban karayso dabcan hadda aniga xarun ma haysto maanta magaalada jooga xarun kuma taalo shirkadda oo maanta aan u shaqo tagay saas tahayna si daily ama si maalinle ayaan shaqadeeda u qabsadaa xilliyada ganacsiga kusoo biirayay hadda aaladan oo kale maan haysanin oo runtii waxay ahayd caqabadooyin jira waayo dadaad u baahan tahay inaad gaarsiisa wax saarka shirkadda oo kugu adkeed inaad gaarsiiso laakiin maanta qofkaas uu gurigiisa joogo ayuu wax saarka shirkadda ka faa'iideysanaya waxaan dhageysanayay walaalkay hadda iga horeeyay cabdisalaan oo hargeysa joogay waaga haddii uu haysan lahaa fursaddan hadda maanta aniga aan haysano may dhaceen inuu 5 maalmood ama wax la xmida oo gaari soo saarnaado oo muqdisho yimaado asoo asxaab ka garan shaqadii ka bilaaba laakiin maanta aniga waxaan haysanaa adoo magaaladaada jooga oo aan safar galin oo aan magaalo aadan ka siin tagin ayaad waxaad jaanis u haysataa waxay tahay inaad ganacsiga qaban karaysa dad badan gaarsiin karaysa aga faa'iideysan karaysa runtii xilliga ganacsiga ku soo biirinay sidoo ahaa iyo maantana waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn oo maanta ayuu ka fudud yahay oo shirkadu markasta waxay fiirsaa macaamiisheeda waxyaalaha ugu fudud ee horumar ku sameyn karayaan maanta darajooyinka way fudud yihiin oo sidoo hore ka fudud yihiin lacagihii maanta way ka badan yihiin sidoo hore marka waxaan leeyahay dhammaan dadka cusub martida ay ku jira programka ku soo dhawaada waxaan rajaynayaa maalmaha soo dhow nagu soo aadana qaar badan caawa marti ah oo aan weli go'aan qaadanin inay ka sheekay doonaan guulaha ka gaari doonaan bilaa raali ka noqdo waxaan dib ugu celinayaa xiriyaha programka Masar Waas hogaamiye inkastoo aan ku dhahay okay masha Allah aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa hogaamiye injineer Cabdalla bin Cabdalla darajadiisa 8 ay tahay runtii dadka abaalmarinta gaariga sanadkan $10,000 qaadan doona